lacagtan la siyaa waxa weeye ilaa $30,000 weeye adiga meeqa ka soo gaar ahaan ka soo gaadha ururka waa hanti uu leeyahay ururka ku shaqeeya 30,000 soo qaybsan marka laga saaro kirada iyo waxyaalaha la midka maxaa lagu qabtaa waa hawlaha xafiiska ku baxda markii aanu ballanay aniga adigu kadib waxaan bilaabay inaan la xiriiro wariyaal fara badan oo gudaha ku sugan iyo kuwa ka cararay Hargeysa labadaba 11 wariye ayaan la xiriiray oo aan magacadooda ku sheegay qof qura mooyaane qofkaas dabadda wadanka ayuu ku sugan yahay imanka aan kula hadlayo 11 waxay ii sheegeen 9 kamid waxay ii sheegeen maanta maalin ay ka xun tahay saxaafadda Soomaaliland ay soo martay ma jirto dhinaca caburida aga jugleynta iyo handadaada joogtada ah maxaa kala daarinta anu ma ogi hal saxafi oo runtii uga maqan Soomaaliland dhibaato ay xukuumadda Soomaaliland runtii ku hayso waxa tiri ma jiro qof wariye ah oo Soomaaliland cabsi oo iyo walwal uu ka qabo awgeed oo gaga tagay ma jiro wariye taar maxaa kala daarinta ilaa hadda ma ogin cid dacweysay ama cid isagoo ka cararay oo runtii dacwad u daba taagan wariye tara wariye Cabdimaalik Muuse Oldoon in geyga Soomaaliyeed caanka si fiican loo yaqaano weey adigana shakhsiyan isku taqaanaan hadda koor wuxuu tagay magaalada Jigjiga Soomaali galbeed ayuu tagay waxaadna sheegtay in cid ceyrsatay aysan jirin iskiisa uu tagay halka ma xasuusta arrintan aad طبعا ha of course asaga miyaad la hadashay oo afkiisa ayaad ka wareysatay in cid ceyrsatay aysan jirin see ku ogaatay adigu وانا كله سيداد منك يوديسا عبد الرزاق ترى يساد يوديسا سغالka suxufiya ka sheegaysa kula dhibaatooyinkaas aan jira ururku maadaama uu mas'uuliyad yahay ururku xubnaha ururka kamid ama saxaafadda Soomaaliland barnt de way iska waraysa meelna waxba uma kala qarsoon laakiin adigu ma wacdo ma la hadashay ma tiri maxaa ka ciiriyay halkan oo Soomaali galbeed u geeyay ma weydiiso su'aashaas anu ma weydiinin xaq ma kuugu lahaa intaadan saxaafadda soo istaagin inaad hubsatid maadaama saxafi hor adayd ururkan aad gudoomiye u tahay inaad dhinac kala wareysatid oo adoo dhinaca war ka haya dawladdiina war ka haya ummadii soo hor istaagtay dadkii la heshiimaysan ku haboonay insaan ku sheegay anagu maadaama ururka hogaamino ururka maalin walba waxyaabaha saxaafadda Soomaaliland la soo darsa waa war u haynaa oo xubnaha ururka oo dhan iyo xubnaha saxafiyiinta dalka jooga hadii aadan war u haynin maxaa kugu kalifay inaad saxaafadda hor istaagto tiraada Cabdimaalik Cuduma ceyrsanin imika haba kula cid ceyrsanaysa markaan ma jirin right asagiiba anigu afkayga kula hadlay waxa uu ka cararayo ii sheegay adigu hawshaadii basic ahayd ayaad gabtay oo ahayd inaad inta la hadashido wacda tiraahdid maxaan ka caawinaa maxaa ku ceyrsaday oo gurigaaga iyo reerkaaga ka dhex saaray oo anagu urur ahaan ku qaban karnaa maanad oranin maxaad u oran weydo ka hor istaagay ilaa saxaafadda waqti oo heshay waxaan ku imika boodiga sheegay saxafiyiin deela waanu ka tagnay dalka sida marka imika baan ku leeyahay ma jirto ayaan marka u jirin cid markaasi Cabdimaalik ceyrsanayay will come to that inaad ogeydii in kala cid ku ceyrsatay waxaan ku weydiiyay straight forward su'aala waxay tahay Cabdimaalik maxaa uu weeday maadaama gudoomiyihii ururka ah tahay oo oran weeday nin saxafi ah tahay waxaan maqlay inaad meeshii ka tagtay yaa ku ceyrsaday maxaan ku qabanaa maxaad oran weeday haddii aan su'aashaada ku cadeeyo anagu Soomaaliland ahaan geographically waxaanu leenahay xad baanu leenahay saxafiyiinta Soomaaliland intaanu qaan maamulaa waa wixii xadka ku jira qofkii wariyaa oo ka baxa xayndaabka iminka aad sheegtay oo dhibaato sheeganaya ama run ha ahaato ama been ha ahaato adigu ma waxa leedahay gudoomiye ahaan wax xil igama saarno qofkaas maalin walba saxafiyiinta Soomaaliland waxay u socdaalaan Soomaaliya waxay u socdaalaan gobolada jaarka aanu nahay wax xil ma ka saaray yaga xaq u leh qofku inuu socdaalo urur ahaan anagu xaq uma lihin mas'uuliyadna ma saarna qofku hadduu socdaalayo meesha uu tagayo isaga xaq u leh kuma weydiin meesha uu tagayo cidna kuma weydiin fiisa miyaa u raadinaysan oo kuma weydiin si kala hadalkaygu dhigtay adiga waxaad gabtay baan ku eeray shaqadaadii asaaska ahayd inaad ku tiraahdid war maxaan ku qabanaa naa waxaad keentay oo tiri wuxuu ka baxay deegaanka anagu ka shaqeynayno ka baxay mid ka mid ah wariyaasha hadda Hargeysa iyo ama Soomaaliland ka howlgala baa baxay wuxuu tagay xafadaha jaarka in ku weerarsan bubtay ka soo qaad dhibaata soo gaartay xaq ma uusan kugu lahayn qofka wacdo weydiiso xaaladdu say tahay waxa uu qaban kartay haddaad la socoto taariikhda Cabdimaalik ama qofka xaq ma kugu leeyahay kuma laha ama Cabdimaalik sa la socoto xamar wutigi wuu soo noqday Djibouti wuu soo noqday xaq isagu leeyahay qofku inuu socdaalo mas'uuliyad anaga mas'uuliyad xaq ahaan inaanu Maxamuud Mudane socdaalka qofku kuma weydiinin xaq ma kuugu leeyahay maadaama aad gudoomiyihii tahay ururka inaad difaacdid oo xaqiisa u soo dhicisina u taagan tahay inaad tiraahdid war maxaad dhibsatay oo ka caawinaa ka urur ahaan
sababtuna waxay tahay waqti baad u heshay inaad soo istaagtid saxaafadda oo tiraahdo cabdimaalig muuse coldoon ciduma cayrsanin laakiin waqti ma aadan siinin umana aadan cadaalad fulanin inaad taleefon ku wacdo oo tiraahdid maxaan kuu qabanaa maxaad tabanaysaa ma aanad odhanin arrintaa ma qiranaysaa mise ma qiranaysa aniga cabdimaaligna ilamuu soo xidhin maadaama midna asoo kula soo xiran adaa mas-uul ah somalilan qofku hadduu ka baxay xadkeeda waxaan rabaa hoos ka xirana because wariye badan oo somalilan jooga caawa ku daawanaya oo aad guddoomiye u tahay qofkii somalilan banaankeeda u baxa xuduudkaas hadda noo sheegtay jigjigoo ninkaan tegay just around the corner ah qofkii ka baxa oo warbaahinta somalilan ka tirsan adigu shuqul kuma lihi ururka dabcan kuma lihi okay that's very good I just want to know that hargeysa markuu ka tegayna dhib ka qabsatay oo uga tego aan cad oo muuqato oo aad odhan karto cabdimaal taasaa ku dhacay ma jirta habeeraatee no waxa ku dhacay uma hadli kartid because waxba kama ogid sababtu waxay tahay ma aadan wicin markii inaad tiraahdo waxba kuma dhacin ba somaliland jooga ana ururka matala saxafiyiinta somaliland dhan meel baa ku raalo maxamed afkiisa wuxuu iiga sheegay cagajuglayn kaamarooyinkiisa in la burburshay xafiiskiisa in la weeraray qalabkiisa in la qaatay intaba waad ogtahay ka warqabtaa habeeraatee xukuma jirna marka hore uu sheeganaya inuu ka tegay dalka habeeraatee wax aliyaal wax lagu sameeyey xafiiskiisa in la weeraray maxaa ka jira kama jiro waxa markaa kaamarooyinkiisa in la qaatay maxaa ka jira kama jiro waxaad noo sheegtay inaadan adigu la xiriirin waxa uu tegay aadan waxba ka ogeyn sooma laakiin waxaad ogtahay wax loo cayrsanaysan jirin dawladda ma ku warranta adiga see ku ogaatay dee sano kale wakiilaan gobolada ku leenahay may dawladda ma ku warranta arrinta dawladdu marka ay saxafi dembi ku oogeyso dee hay-adaha sharcigaaba u martaa waxaan rabaa si cad inaan su-aal ku weydiiyo xarigga cabdimaalig 8 bishaan iminkaan ku jirno 2019 lagu xukumay ururkaaga soo arkaya adig sida aan kuu sheegay maadaama anigu aanu difaacna saxafiyiinta saxafi cabdimaaligna markaa uu hargeysa kusoo noqday ama burco kusoo noqday la xidhay urur ahaan anigu mas-uuliyaddii naga saaray waa ka gudanay labada looyar waa kuwa ka qayb galay ama kuwa difaacayay baa hadda hargeysa lagu xukumay hadda hargeysa lagu xukumay mas-uul kaa saaraya sano kulama ahaa markii burco lagu xidhay ilaa maalintaa imika la xukumay ilaa imika uu jeel ku jiro ururka soolja waajibaadkii xaqa ugu lahaa uu ka gutay labada looyar u doodayey marka laga yimaado barkhad maxamuud cabdiraxmaan gareeqaan maxamuud cabdiraxmaan iyo maxamed abukor labaduba laba looyar oo ururka u shaqeeya iyaga u difaacaya oo u doodaya ilaa maanta sidii baan ururka hawshiisa ugu jira halkaas aan kuu saxo labada garyaqaan oo u doodaya idinku aad soo dirteen mid maalin qura ayuu yimid dib dambena looma arag waxaan u malaynaya aadan la soconin dib rekoorka u baar xarga cabdimaalig see aragta labada looyar oo kale tamaam mubaaragna ma ilaa 4 looyar ilaa 6 looyar oo u doodayay xarga cabdimaalig xukunka maxkamaddu ay ku riday 3 sano barkaas see aragta ururkaygu waa ka hadlay dabcan ururku waa ka hadlay anuu cabdimaalig xadhigiisa runtii intii aanu difaaci karaynay waa difaacnay garsoorkuna dee isagaa xaq u leh in uu go-aan gaadho inaad u doodeen oo looyar u qabateen shaki kuma jiro adna waa ogtahay anna waa ogahay inkastoo hal looyar oo ahaaye mid maalin qura yimid mubaarag iyo rag kale u doodayey sidee u aragtaan urur ahaan xarigiisu ma xaq baa mise xaq maa sidee u aragtaa haddii maxkamadda go-aan ka gaadho runtii dee dabcan male choice male laakiin waxaa noo bannaan fursadaha kale ee aanu ugu qaadi karno maxkamadda xukuumaddu halkan joogi lahaa su-aalo kale aan weydiin lahaa su-aashaan ku weydiinaya ururkiina fikirkiisa raba inaan ogaado adigu aa guddoomiyaha u tahay kaaga shaksigaa dan kama lihi ururkiinu cabdimaalig ma wuxuu u arkaa nin dembiile ahaa oo maxkamaddu dembi ay ku heshay mise nin dembi uusan lahayn lagu qaaday see aragtaa ururka horta isagu saxafiga dembi ma saaro dembina kama maydho waxa uu u sameeyaa waan fahmi karaa su-aashu inay adag tahay ka dhuudhuumanaysa ama ka lehleexanaysa laakiin kaama daynayo ilaa jawaab saxa aan kaa helo ururkiinu sidoo u arkaa cabdimaalig xukunka lagu riday ma xaq buu u arkaa mise baatil dee dabcan cabdimaalig waa la soo eedeeyey saan kuu sheegay dee dembi baana lagu helay dembi baa lagu helay dembi baa lagu helay soo waxaa aragtay garsoor xaq ugu leenahay sida dacwadaha caadigaaba ka dilay dad baa dee marka xukun lagu rido loo doodaayo abiil loo qaadaa dacwadiisa la galaa soo marka idinku maxkamadda la safantihiin maanagu xukunka abiil baa loo qaadinabe soo abiilka waxa qaadaysan kuma qanacsanidin dabcan kuma qanacsanin soo cabdimaalig waxa aragtaa inaan dembi lahayn oo dembi maxkamaddu ay xukuntay anigu cabdimaalig maadaama maxkamaddu xukun ku riday abiilka aanu qaadanayna waxa weeye in aanu fursad u siino in aanu ilaa iyo halka ugu dambaysa taagnaano haddii maxkamadda ilaa saraysanee la gasho waa gaarayna laakiin anagu marka taa inta aan inaga soo afjarmayso waa wadayna anagu inuu cadaalad helay ma u malaynaysaa dabcan somalilan dee garsoorkeedu waxyaabaha aan ku faano weeyaan runtii inta badan waxyaabo badan bay garsoorka nala qabteen waxyaabo fara badan bay tasiilaad siiyeen saxafiyiinta xuquuq fara badan ay lahaayeen saxafiyiintu oo awal hore aanay heli jirin cabdimaalig inuu cadaalad helay ma aaminsanta ya cadaalad inuu helay ma aaminsanta maxkamadda dhexdeeda
ha tii ugu wanaagsaneed buu helay si aad ugu aragtaa maamulka in eedeymaha dhabta uu jiro loo soo jeedsho la yiraahdo qofku xorriyatul qowlkiisa cabiri karo dhihi karo qofkaana waa dictator waa keligi taliye go'aanka kaliisa gaara ummadana uu ku takrifalaya nod madaxweynaha bar mas'uuliyiinta kala xataa in la yiraahdo si aragtaa xorriyatul qowlha qofku xaq mu leeyahay inuu saadho طبعا umale maxamuud cabdi jaamac waxa weeye waa nin maaragtay aan wanaagsaneyn oo saas inaan ku dhaho oo xorriyatul qowlkaas anigu xaqaan u leeyahay ma aaminsantahay mid aan ugu leeyahay inaan ama run ahaado ama been ahaato maya xaq u mari